السلام عليكم دمانتين maanta waxaan sharxayaa filim xiiso badan oo la soo saaray 2018 oo la yiraahdo Alpha. filimku wuxuu ka bilaabmayaa Yurub casrigii dhagaxa 20,000 oo sano ka hor iyadoo qabiil reer miyi ah ay rabaan inay ugaarsadaan lo'gisi iyagoo isticmaalaya waranka halista ah si ay u adeegsadaan jiilaalka soo socda. meeshu waa ka fog tahay ilbaxnimada xayawaanka hadda jira waa hore ayuu dabar go'ay waxay ku urureen buuraha si ay u daaqaan. deegaanku wuxuu marayaa heerkii ugu sareeyay ragga gaarka ahna waxay raadinayaan nolol. runtii dadka iyo duunyada waxay ku wada nool yihiin si farxad leh. waardiyaha ugu fiican ee ugu cararaya go'aan qaadashada yar ayaa qabiilka hogaamiya waana Tao. waxay weerar ku qaadi doonaan lo'gisida sidaa darteed waxay ka hooban doonaan cirifka buurta oo ay wada dhiman doonaan dhammaantood. intii lagu jiray kala orodka ayaa mid ka mid ah weerartay wiilka Tao, Kita. wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo wiilkiisa oo wuxuu dibiga ku tuuray waran laakiin ma noqon mid joojiya orodka dibiga. isagoo adeegsanaya jirkiisa adag iyo geesihiisa ayuu si dadaal la'aan ah u tuurayaa Kita. toddobaad ka hor niman dhalinyaro ah oo qabiilka ka tirsan ayaa la tijaabiyey laguna tababaray awoodooda si ay u afaystaan agabka dhagaxaanta oo ay ku dagaalamaan. maalintaas markii Kita uu ka gudbay tijaabada dhagaxa, Tao wuxuu aqbalayaa inuu ku soo daro ugaarsigooda si uu u caddeeyo in Kita uu hogaamin karo halkaana uu karti ka soo qaato. Tao wuxuu kalsoonida siinayaa Kita iyo awoodiisa inuu hogaamiyo qabiilka. marka waqtiga saxda ah la gaaro, Tao wuxuu katiinkiisa u gelinayaa Kita qoortiisa taasoo ka dhigan inuu ku aaminay xilka wiilkiisa. habeenkaas qabiilku wuxuu u sameeyay caado ugaarsiga soo socda. sanad kasta waa khatar iyo fursad aad ku sii xoogaysan karto. ka hor intaanay seexan, Tao wuxuu xaaskiisa Ro kala hadlayaa Kita. Ro waxay aaminsan tahay in Kita uusan diyaar u ahayn inuu isticmaalo waran balse uu Kita adeegsado qalbigiisa si uu u hogaamiyo. lamaanuhu may ogeyn in Kita uu dhegaysanayay sheekadooda. wuxuu rabaa inuu caddeeyo inuu waran adeegsan karo iyo inuu yahay qof aabihii ku faani karo. marka qoraxdu soo baxdo, ugaarsatada qabiilka ayaa ugu dambeyntii loo qalabeeyey inay ku dhiiradaan duurjoogta. ka hor intaysan ka tegin, Tao wuxuu u ballan qaadayaa inay guriga iman doonaan kadib markuu Kita helo booskiisa hogaaminta. Ro waxay ka shakiday safarka laakiin waxay si qoto dheer u ogtahay in ugaarsiga qasab uu yahay inuu dhaco. Kitana wuxuu u baahan yahay inuu aqbalo masiirka isagoo ah hogaamiyaha mustaqbalka. inkastoo uu shaki ku jiro, Kita wuxuu si geesinimo leh u raadinayaa inuu sahmiyo cidlada iyo waxa isaga halkaa ku sugaya. Tao wuxuu Kita ku tijaabinayaa inuu dab shido habeenka ugu horeeya, laakiin dhowr isku day kadib wuxuu ku guuldareystay inuu dabka shido. talo ahaan, Tao wuxuu ku wargeliyey inuu diiradda saaro oo aanu quusan. maalin maalmaha ka mid ah, Tao ayaa la kulmay saaxiib ka soo jeeda qabiil kale sidoo kale isagana ugaarsi u socda. Tao wuxuu barayaa Kita. saaxiibkii isagoo murugaysan ayuu u sheegay sheekada wiilkiisa inuu dhintay oo uusan hadda bari karin iyaga. taa beddelkeeda, Tao saaxiibkii wuxuu u duceeyey Kita iyo qabiilka oo dhan. ugaarsatadu markay marayeen dariiqa xurmada leh ee awoowayaashood u asteeyeen say u hagaan, way ixtiraameen iyagoo gacmaha saaraya dhagaxyada. taasina waxay calaamad u noqonaysaa si aanay u lumin inta ay socdaalayaan. ka hor intaanay maalin kale dhammaan, ugaarsatada waxay qabteen doonfaarka duurjoogta ah. Tao ayaa ku tijaabiyey Kita si uu u dilo doonfaarka, laakiin wuu ka warwareegay kadib markuu maqlay oohinta halganka ee xayawaanka. isagoo ka niyad jabay fulaynimada Kita, Tao ayaa dilay doonfaarka laftiisa oo yidhi noloshu waa karti iyo awood la kasbado ee la isma siiyo. habeenkaas ayaa ugaarsatadii waxay maqleen shanqar daasoon oo duurka gadaashiisa ah iyagoo wax ku cunaya dabka agagaarkii. way feejigan yihiin ilaa uu libaax weyn la booday mid ka mid ah ugaarsatada si toos ah. Kita wuu gariiray isagoo ku fikiraya in la dili doono. wuxuu maqlayaa dhawaaqa halista ah iyo qaylada ugaarsadihii oo dhimanaya ee mugdiga ka imanaysa, wayna cabsi gelinaysaa. Tao wuxuu ku qanciyey Kita iyo qabiilka oo dhan inay is adkeeyaan. markuu libaaxa weyni meesha ka baxo, isla markii qoraxdu soo baxdo ayay ugaarsatada u sameeyeen qofka ka tirsan qabiilka xus ay u muujinayaan ruuxa dhintay. waxaa la isdul saaraa tulmo dhagaxyo ah oo la isku qurxiyey oo ay weheliyaan ducadii qabiilka ee ahayd inay si nabad ah u noolaadaan. dabadeed ugaarsatadii waxay sii wateen safarkoodii. waxay ku hakadeen god ay gabaad ka dhigtaan isagoo Tao u sharaxay Kita in xidigaha ay aaminsan yihiin inay yihiin iftiinka awoowayaashood oo ay ku caawiyaan inay safraan. ilbiriqsiyo kadib, baroor ay weheliso humaag ee buur u dhow ayaa soo jiitay dareenka Tao iyo Kita. markaas Tao wuxuu u sharxayaa inay tahay Alpha, hogaamiyaha daryeela raxantiisa wax kasta oo kale ka saraysiiya. kuwa kale ee raxanta ku jira ayaa kula loolami doona haddii ay ka dareemaan daciifnimo, laakiin Alpha waxay u muujisaa kuwa kale inay ogaadaan jagadiisa, xooggiisa iyo deganaantiisa. qofku kuma dhalan Alpha sababtoo ah waxa lagu kasbadaa geesinimo iyo qalbi. sidaa awgeed, tafsiirka xeel dheer ee Alpha wuxuu wax badan ka sheegay waxa uu rabo Kita inuu noqdo hogaamiye u baahan inuu booskiisa ku kasbado geesinimo iyo jacayl. ugu dambeyntii, safarka dhexdiisa ayaa ugaarsatadu waxay ogaadeen raadadka lo'gisida ee dhulka. iyagoo taas niyadda ku haya ayay isu diyaariyeen iyagoo dhoobo wejiga marinaya oo warmaha dhulka kula gurguuranaya.
muuqaalka xiga waxaan ku aragnaa Tao oo u ordaya dhanka fiiqa buurta si uu u eego Kiita oo nasiib wanaag ka sii laalaada dhagax kadib markii ay Lo-ogisi halkaa ka tuurtay. Si kastaba ha ahaatee dhagaxaanta ayaa u jabaya oo tuuraya Kiita iyagoo u sii gudbinaya dhagax soo baxsan. waxaa la arkayaa Kiita oo miyir daboolan oo saaran bartamaha fiiqa buurta taasoo ka dhigaysa Tao inuu damco inuu hoos u dego oo uu badbaadiyo wiilkiisa. Si kastaba ha ahaatee nin kale oo ugaarsade ah ayaa joojiyey sababtoo ah Kiita mar hore ayuu dhintay waana inay sii wadaan ugaarsiga sida ugu dhaqsaha badan. sidaa darteed ugaarsatadii waxay yimaadeen gunta hoose ee buurta say u ururiyaan meydadka Lo-ogisida. halkaa markay marayso waxay go'aansadeen inay tuulada kula noqdaan war xun. maalinta xigta ayaa ugaarsatadu u imanayaan si ay u qabtaan munaasabad kale oo xus ah. Tao waxaa ka buuxsamay darxumo isagoo ku oynaya dhagaxaanta dushooda. dabadeed wuxuu ku kala firdhiyey budada liimiga ah buurta hoosteeda oo uu yaalo meydka Kiita. tani waxay calaamad u tahay aabaha oo macsalaameynayay wiilkiisa oo uu badbaadin kari waayey. intaa kadib Kiita si lama filaan ah ayuu u soo toosay. markuu gorgorku isku dayay inuu cuno hilibkiisa fakar la'aan ayuu si xoog ah u ruxayaa oo uu gorgorku ku dilaya halkaa. isaga oo tixgelinaya xaaladiisa murugada leh wuxuu qabsanayaa inta uu kari karo gabal dhagax ah oo aad mooddo inay noloshu ku xiran tahay sababtoo ah runtii way u muuqataa. roobka da'aya kama joojin inuu rumaysto inuu halkaa ka bixi karo isagoo nool, laakiin roobku wuxuu ka dhigay dhagaxa mid sii siibanaya. sidaa awgeed Kiita wuxuu ku dhacay mawjada roobka ee daadka ka hooseeya. markuu soo toosay Kiita wuxuu sii waday inuu wacdo aabihiis. dabadeed cagtii dhaawacantay ayuu ul ku duubay ka hor intuusan ku noqon buurta dusheeda. halkaas ayuu ku arkay dhagaxaantii xuska ahaa oo wuxuu go'aansaday inuu ku noqdo tuuladii oo uu qabiilka ogeysiiyo inuu weli nool yahay. habeenkii geed dushiisa ayuu u hoyday oo biyo ka soo urursaday meelaha biyo mareenka ah. wuxuu cunayaa gooryaan si uu u noolaado. maalin maalmaha ka mid ah koox yey ah ayaa soo weeraray laakiin Kiita aad buu u dheereeyaa inuu fuulo geed oo uu xitaa dhaawacay mid ka mid ah yeyda isagoo isticmaalaya dhagaxiisii afaysnaa. taa beddelkeeda kooxdii oo dhan waxay ka tageen yeydii dhaawacantay. marka habeenku dhaco maalinta xigta Kiita wuxuu diyaarsanayaa warankiisa si uu u dilo yeyda dhaawacan, balse halkii uu dili lahaa wuxuu ka daaweynayaa nabarada kadib markuu yeyda afkeeda xiray saysan u qaniinin. kadib Kiita wuxuu keenayaa yeyda durdur halkaasoo uu ku arkay waraabayaal gaajaysan oo ugaarsanaya. Kiita wuxuu yeyda geeyey god hoy ahaan. mar uu godka ku jiray Kiita wuxuu isku dayay inuu dab sameeyo isagoo isticmaalaya ul aabihiis oo kale, balse mar kale wuu ku guuldaraystay. marka qoraxdu soo baxdo Kiita wuxuu u helay geedo cagtiisa dhaawacnay. dhanka kale yeyda ayaa xooggeedii soo noqday oo ka furtay xarigga afkeeda. wuxuu siiyey yeydii biyo oo uu isu baray saaxiibkii cusub. marka hore yeydu waa ka labalabaynaysa oo si tartiib ah ayay u fogaatay. Kiita wuxuu helay kalsoonida yeyda markuu la qaybsaday cuntadiisa oo uu kalgacal u muujinaya, islamar ahaantaana wuxuu u muujinayaa dulqaadkiisa oo aanu ka tanaasulin. Kiita intii uu baranayay qaanuunka duurka cidlada ah hadda wuu yaqaanaa sida dabka loo sameeyo oo xitaa wuxuu kala hadlayaa yeyda habeenkii sida ay labadoodaba ugu xiiseen qoysaskooda. maalintii xigtay wuxuu godka kaga tegay yeydii suu keligiis ugu safro tuulada. si kastaba ha ahaatee wuxuu ogaaday inay yeydu weli soo raacayso halkii ay ku noqon lahayd qoyskeeda. waxyar kadib markuu xiriirkoodu kordhay waxay noqonayaan lamaanayaal wada ugaarsada. waxaa imanaya habeen qabow halkaas oo yeydu u soo dhuumanayso Kiita say u seexato agtiisa, inkastoo Kiita u digay inaanu u soo dhowaan. kadib aroortii labadooduba waxay aadeen webi u dhow say u qubaystaan una ugaarsadaan kalluun. si tartiib ah ayay saaxiibtinimadooda isku beddeshay mid aan la qiyaasi karin. waxay u eg tahay in labadooduba midba midka kale ku tiirsan yahay oo ay noqdeen saaxiibo wanaagsan. Kiita weligii ma dareemin kelinimo yeyda awgii. intay jidka ku jireen waxaa hagayay xidigaha ka sareeya. wuxuu u bixiyey yeyda magaca Alfa si uu u xuso saaxiibtinimadooda. labaduba way wada joogeen marka uu jiilaalku si tartiib ah u yimid ilaa habeenada ka mid ah ay Kiita iyo Alfa soo weerareen raxan yey ah. waxaa dhacday in yeyda ay is-afgarteen Alfa, sidaa awgeed Kiita wuxuu go'aansaday inuu u ogolaado Alfa inuu raaco kooxdiisa. wuu ka xumaaday Kiita arrintan, balse diyaar ayuu u yahay inuu sidaas sameeyo maadaama ay tahay Alfa dartiis. markan Kiita si lama filaan ah ayuu u dareemay kelinimada baaxadda leh ee safarka keligiis. riyadiisii waxaa ka buuxa sawirada waalidkiis oo raadinaya isaga, gaar ahaan hooyadiis oo uu ka tegey. markuu xilligu isu beddelay xilli aad u qabow, Kiita wuxuu sii waday baadigoobkiisa isagoo aan lala socon. kadib isagoo dhex maraya jasiiradda weyn ee dhulka barafaysan wuxuu gartay Alfa oo ku dhex jira koox yey ah oo ku cunaya bakhti haro barafaysan dusheeda, isagoo aad ugu farxay aragtida saaxiib muddo dheer ka maqnaa. Kiita wuxuu u dheeraynayaa yeyda, balse barafka ayaa kala dilaacaya wuuna khuusayaa. dhanka kale Alfa wuu gartay isaga oo si waali ah ayuu u yimid si uu u badbaadiyo Kiita. nasiib wanaag Kiita wuxuu qabsaday tooraydiisii oo uu ku burburiyey barafka. Alfa isla markiiba wuu caawiyey markuu ka soo baxay harada barafaysan. isbariidin kadib Kiita si degdeg ah ayuu dab u sameeyey kadibna iska saaray dharkiisii qoyana ka hor inta uusan la seexan Alfa, isagoo isku duubay suu kulayl iyo diirimaad uga helo. wadada dhexdeeda Kiita iyo Alfa waxay arkeen nin barafoobay oo ku dhintay meel teendhadiisa ka baxsan. Kiita ayaa markii hore u qaatay in ninku nool yahay. isagoo gaajoonaya oo quus ah ayuu ninkii alaabtiisii ka soo dhex daadiyey, laakiin
laakiin wax kale ma helin oo aan ahayn laba qaanso iyo falaaro. Waqtigan xaadirka ah dhiig ayaa ka soo baxaya afka Kiita markasta oo uu qufacayo qabow daran iyo gaajo awgeed. Intaa kadib raxan waraabe ah ayaa daba orday balse markiiba waxay u yaaceen god si ay u raadiyaan meel ay ku dhuntaan. Si kastaba ha ahaatee waxay garan waayeen in godka aanu ammaan ahayn waayo waxaa hortooda ka soo muuqday libaax doonaya inuu ugaarsado. isla markiiba Alfa ayaa la dagaalamay iyadoo Kiita uu hiigsanayo qaanso iyo falaar si uu uga adkaado libaaxa godka. Inkastoo uu si guul leh u dilay libaaxa, Kiita ayaa ka murugaysan dhaawacii Alfa ka soo gaaray dagaalka. Wuxuu u mahadcelinayaa saaxiibkii oo badbaadiyey. Maalinta xigta waxay khusaysaa rajada Kiita kadib markuu arkay wadada xurmada leh. Tani waxay la macno tahay inay u soo dhawaanayaan tuulada. Ugu dambeyntii inta lagu jiro habeenkii, Kiita iyo Alfa waxay daawanayaan ilays cirifeedka iyagoo u malaynaya in awoowayaashu ay iftiiminayaan say ugu hagaan guriga. Inkastoo ay jiraan dhibaatooyin, weligii rajo ma lumin waayo wuxuu og yahay inuu heli karo jidkii uu ku soo noqon lahaa oo uusan keligiis ahayn. Markuu Alfa socon waayay dhaawaca dartiisa, Kiita ayaa qaadaya isaga oo liita oo dhiig qufacaya. Ugu dambeyntii markuu Kiita u adkaysan waayay dhaxanta ama dhaqaaqi kari waayay, wuxuu isagana ku dhacayaa dhulka Alfa agtiisa isagoo daalan. Riyooyinkiisii Kiita wuxuu ku arkay waalidkii oo weli aaminsan inuu ku soo noqon karo guriga. Markuu soo kacay wuxuu ugu dambeyntii la kulmay tuulada oo u dhow. Isagoo aad ugu faraxsan oo dhoola cadaynaya ayuu horay u socday. Markay waalidkii indhahooda saareen way rumaysan waayeen in Kiita soo noqday. qof kasta wuxuu muujiyay farxad iyo faan soo laabashadiisa awgeed. Markan Kiita wuxuu si dhab ah ugu cadeeyay qabiilkiisa inuu u qalmo darajada uu u dhashay inuu hogaamiyo. Marka Kiita iyo Alfa ay joogaan goobta dhakhtarka tuulada, qof kasta wuu yaabay markay Alfa umushay koox dhalaan ah. Kiita ayaa ah kan ugu yaabka badan in saaxiibkiisa geesinimada leh uu ahaa dhadig waqtigan oo dhan. Muddo aan dheereen kadib, Kiita wuxuu isku geeyay xooggiisa oo dhan si uu laabta u geliyo Alfa, sababtoo ah dhibaatadoodii way dhamaatay hadda. Waxay maareeyeen inay wax walba si wada jir ah uga gudbaan. Inkastoo ay jireen dhibaatooyin, haddana waxay aqbaleen inuu midba midka kale u noqdo xoog iyo badbaado. Markeeda Alfa iyo ilmaheeda si rasmi ah ayaa looga aqbalay qabiilka, waxaana koriyey Alfa iyo Kiita. Filimku wuxuu ku dhamaanayaa iyadoo qabiilku ugaarsanayo iyayda oo u muuqda kuwo ka xoog badan sidii hore. Mudnaanta waxaa leh Kiita iyo go'aankiisa. Wuxuu isku cadaynayaa inuu yahay hogaamiye cajiib ah isagoo kaashanaya saaxiibkiisa ugu weyn iyo asxaabta Alfa. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.